anigu waxa ku soo bartoosh iyo gaajo in la in xuquuqdeeda waxaan ka codsanay ummadda Soomaaliyeed taas anigoo saas daraaddeed waxaan ku soo bartay dhibkaan iyo intaan daruuri aan ku soo bartay daruuf walba oo adag waxaad uga gudbi kartaa inaad la dadaashid noloshaada. Qaasin Salaad Gabood oo ah wiil yar oo ka soo jeeda qoys danyara oo degan kaamka Tawfiiq Garbahaarey ayaa ka soo dhex muuqday boqolka arday ee ugu sarreysa imtixaanaadka qaranka. nolol ay adag tahay ku noolaanshaheeda ayuu ku soo qaatay waxbarashadiisa, wuxuuna gelinka hore aadi jiray iskoolka, gelinka dambana dhowr neef oo ay xoolo ka haystaan qoyskeedu ayuu ku celcelin jiray bakad aan ka dheerayn kaamka ay degan yihiin waxa uu magaalada u jiraa 1 kiiloomitir iyo bar, waxaana u dhaxeeya jeexyo waaweyn iyo tog biyo ay ka buuxaan oo inta badan qataro badan uu kala kulmi jiray xilliga uu ka gudbayo. Mararka qaar marka uu roobku da'o toguna ay biyaha soo buux dhaafiyaan, waxa uu hareere socon jiray toga ilaa uu ka helayo meel biyuhu ay ka yar yihiin oo uu ka gudbi karo. dhibaatooyin fara badan ayuu kala kulmay si uu ugu gudbo goobtiisa waxbarasho oo ku taalay magaalada, sida uu ii sharaxaya haddaba. 1 kiiloomitir oo u dhaxaysa iskuulka iyo xaafadda aan deganay ama aan ku noolay waalidiinteed, taasoo waliba iskuulka iyo xaafadda u dhaxaysa bohol weyn oo keenta biyo xilliga roobka, taasoo aan juhdi u gelin inaan waxbarashada ka haro. mar walba waxaan isku dayay inaan ka gudbo bohosh, taasoo anigana hore juhdigaas u bixinay inaan waxbarto oo heerkan jaamacad hadda gaaro, taasoo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan haddana heerkan soo gaaro oo aan ka midna 100 qof oo waraysa Soomaali. in badan qatarta sida oo kale bohosh aniga waxaan iskana oo nin yar gaaban oo bohosh biyo aad bay banday atan bohosh malahan hoogaa yar bunto biyo fiican ka gudbi kartay lahan haddana bohosh dhiiqo badan aniga haddana kobahayga dhiiqadii yaan iskuulka la aadi jiray, taas oo si aan wax barto oo aan xilligan aan soo gaaray inaan iskuulka qalin jiba. haddana dhibkaas ayaan ku soo mari jiray xaafadan kobo buud haddaan soo herto kobahii togi oo biyo wadaan la imaan biyo haddii ka gudbays dhiiqo iyo khatar iyo waxaan uniformka hoogaa yar dhiiqan gaaro, taas ka mid noqotay inaan heerkan ka soo gaaro. haddana dhibkaas aan soo mariyay waxbarashadii, taasoo haddana bareegi hore markaan iskuulka aaday bareegi inaan u soo aaday xaafadayda. dhibkaas bareega ka soo noqotid iskoolka halkan ma soo aadi jiray? halkan ayaan soo aadi jiray, halkan aan quraac soo doonin jiray, haddana shay aan jiray waan ka sii laaban jiray. inkaas taasoo waxa sameynaysa inaan waxbarashada u laabto si dhaqso u laabto, inaan soo ordo xaafadda ma haddana quraan ku laabto guriga aan ku laabto magaalada jooga baabuur u raaceen, laakiin aniga dadka kaamka jooga baabuur u raaceen, laakiin aniga ma awoodin inaan ka raaco baabuur. saas oo daadeed macallimiintu waxay dhigi jireen maxaa u soo daadan, anigana waxaan ku xaafadda la iskuulka waxaan ku aajiray lugteed, taasoo aan juhdi u gelin si aan waxa u barto oo hadda heerkan jaamacadda joogo u gaar. waxay qaban jireen shaqada fuundida oo guryaha la dhisay oo sida faryaamaha ayuu qaban jiray aabahay. maamadana ooga xaafadaha ay ka shaqaysay oo waxa kasoo dhar ku soo dhaqa. mar kale Qaasim Salaad oo ku faraxsan guushiisa, cabsi weyn ka qaba waxbarashada jaamacadda inuu waayo, maadaama uu 100 arday oo wasiirku u ballan qaaday inay heli doonaan jaamacad bilaash uu ka mid yahay. haddana waxa uu sheegayaa maadaama qoys danyara uu ka soo jeedo uusan haysan cid la dadaasho oo kula dagaalanta inuu helo jaamacad inuu waayi karo. wuxuu sidoo kale dhinaca kale ii sharaxayaa noloshii adkayd ee uu wax ku soo bartay, isagoo sheegayo in mararka qaar maadaama gurigu uu ku yaalo ka magaalada ka go'an haddana aysan jirin koronto iyo waxyaabo kale oo ka caawin kara in xilliga habeenkii uu casharkiisa maraajacaysan karo, maadaama galabkii uu ku soo daahayo ari uu la joogo meel ka baxsan kaamka, habeenkiina uu xaafadda yimaado, subaxiina laga rabo iskoolka inuu aado. hadda waxaan arkay inaan ka mid ah 100 qof oo waraysa Soomaali, sidaasoo daweed waxaan rabaa in sidaan isa ka fiican dawladda waxay qabato oo aan hore waxbarashada u sii wato. anigu
horta waxaan ka soo keemaaday degmada Qasax Dheer anigoo yar hadda waxaan ku barbaaday degmada Garbaare waxaan waxbarasho ka bilowday dugsiga hoose dhexe Garbaare primary school haddana waxaan ka qalin jabiyay dugsiga sare ee Miiruur taasoo haddana intaasoo sano waalidiintayda juhdi u soo geeyeen si aan wax u barto haddana aniga gelinkii hore saas baa taas aday u dhaay gelinkii dambena haddii xaafadda imaado waxaan raacaa arigii oo ka horbaa si aan usoo wareejiyo kadib markaan soo laabto xaafadii inaan haddana casharkay waraajeystaan rabaa markaan soo laabtana ma jirto meel aan ku akhrista casharka taasoo dhibka weyn oo meesha ka jiro waxbarashada anigana waxaan doonayay si markaan habeenkaan soo laabta aan casharadan waxa aan ku akhristo oo neel ah muraajaca ma jirto taasaa dhibka ugu weyn ahayd markii habeenkii ani maamada isku imaan mar waxaa jirta aniga markii bisha dhamaatay lacagta lii soo xiray maamada hataa maamadii waalidka aysan helin lacagtii taasoo keeni karta aniga dhib oo waxbarashada anigana waxaan mar walba u soo jiray iskuulka si aan wax u barto waalidkayna marmar si aniga igu dadaalo wuxuu sugday deen oo lacag intaas 900 bishii 2 bilood ku soo gaaraysa marna waxaa jirta si aan ardayda wixii aan aqoon u soo maajeysa aan magaalada u aado mar magaalada aan u aado si aan ardayda wax u soo faa'iido aniga dantayda u soo faa'iideysto daawadayaal waxaynu hadda la joognaa Salaad oo ah aabaha dhalay Qaasim oo kamid ahaa boqolkii arday ee ugu sareysay imtixaanka qaranka bal waxaan weydiinaynaa aabahan oo la sheegay inuu fuundi yahay ka shaqeeya dhismayaasha nolol iyo duruuf adagna wax ku soo baray caruurtiisa bal waxaan ka wareysanayaa sida uu dareenkiisu noqday markii loo sheegay in boqolka arday ee ugu sareysa imtixaanka qaranka uu ka mid noqday wiilkiisu dareenkay Yaasin Salaad Gobood ardayda boqolka horeysa ku jirta markii la dhahay hamiin farxad ma seexan si u jaalay ma seexan Qaasim iyo Salaad Gobood ardayda oo boqolka hor qaranka imtixaanka gashi ayaa ku jira markii la dhahay waagan hay jecel oo bana farax dartiyo mubarigalne waagi makiin bari oo lahay mana saasinka farax qof walaalkay oo islaan oo muslim hadda hebba waxa ii soo diray dhahaayna ma jira walaan haysada ma leen inta saan hadda ku soo iga bixiyo aruurtay jaamacad igu qaada gurigay adiga waa u jeedaa rafaadni guriga oo dhagalo sariir maneen taal wal oo ka seedaan ma aruurtay rafaad baa ku intii rafaad iga biyo ku qodsanay marka gelanka dambe ari baa ii raajiri gelanka dambe isbuuka aari jiri hadda aan jaamacad u waayana gelanka dambe gelanka hore ariga ii dareeriya anina dharka soo dhaga kiilada bariiska kiilada baad wali ilaahay ii soo si kastaba ha ahaatee da'yarkan doonayo inuu wax barto balse noloshu ay ciishay ayaa madaxda dalka ugu sareysa iyo Soomaalida uu fariinta u diray ka sugayo in ay ka caawiyaan noloshiisa waxbarasho Mawlid Jaamac Farax Mawlid Galwaaq warbaahinta Shabeelle magaalada Garbaare ee xarunta gobolka Gedo